qaybaha maansada soomaalidu gabayga iyo geeraarka iyo jiiftada oo keliya ma ahayne waxaa jiray haddii aan ku reeyaa qayb kale oo la yidhaahdo heesaha dhaqanka oo marka la shaqaynayo shaqada lagu jiro ragga ama dumarku haddii aan ku reeyahay ama labaduba ay ku looqayn jireenoo si ay isku dhaafiyaan hawsha dhibkeeda iyo canaabteeda iyo haddii daalkeeda si ay isku dhaafiyaan مثلا Soomaalidu waxyaalo badan bay qaban jirtay xoolaha la arooriyaayo la shubaayo hees bay leedahay kabdaha la sameeyayo hees bay leedahay bay lahaydo haddii aan ku reeyaa cayaaraha jiray oo dhaantaa jirtay oo haddii waxaa jiray haddii aan ku reeyaa gablow shimbiro waxaa jiray haddii zayric oo yani cayaaro badan oo ama hees hawleed ah oo ama hees cayaareed ah ayaa loo bixiyay oo haddii aan cayaarta la socota mar walba buraanburka ka mid ah cayaaraha oo kale ayaa ka mid ah dumarku oo markii uu aroos iyo wax jiraan ay tiriyaan oo sacab iyo jaan labadaba leh ma jaan buu leeyahay heesahaas iyaga laftoodu wixii laga rabay gabayga iyo geeraarka iyo jiiftada ayaa laga rabaayo waxaa laga rabaa inay miisaanna leeyihiin qaafiyadna leeyihiin waanigii qaafiyadda sheegay miisaanku waxaa weeye beydku haddii uu dheer yahay ama ka gaaban yahay intii loo baahnaa iyo intii lagu yiqiina waxaa la yidhahdaa waa jaban yahay hadduu mar jaban yahayna cidina ma dhegaysan jirin waxaa loo jira gabay mataqaanida haddase gabayo rag badan oo iyo dumar badan oo haddii aan ku runaya gabayo ama buraanbur tirinaya oo miisaanku jaban yahay ama qaafiyad aan lahayn ayaan cidina haddii aan ku runaya ka qaban oo waxaad moodaa in laaxinkii la qaayibay ayaad moodaa yeelkeeda casharadan waxaan u bixinaynaa waxaa weeye taa in lagu baraarugo heesaha dhaqanka marka waxaa ugu foolaadsan oo aad iyo aad loogu jecel yahay waa heesta geela oo la tiriyo ragga geelshiraha marka ay shubayaan geela ama ay fulinayaan oo haddii aan lagu ron yahay ama ay dheelmayaan oo mararkaas oo kale ayaa aad iyo aad loo soo qaataa mararkaas oo kale ayay ku heesi jireen haddaan tusaalayaal ka bixiyo wuxuu yidhi geesi gacantiyo garbaha weyn gaari guudkiiyo gambadaa weyn goray gudihiiyo gumbadaa weyn goray waa hashii mid kale wuxuu yidhi anoo suub iyo soobir maalaan seexan waaye sac nin haystiyo sagaaraystiyo sabool ariluhu sabaankii dheer see u nool yahay wuxuu la yaaban yahay qof aan geel lahayn sida u noolaan karo ninka arigale iyo ninka loodale iyo in xoola haysta uma waha waa kibir miran ninka geelshirahaya had iyo jeer wuxuu kaloo yidhi candho saab weyn oon sida lahayn soo sidaay suub waa hashi buu la hadlayaa wuxuu leeyahay caanaheeda ayuu sheegaya oo tirada badan oo haddii ay candhada ku sido meesha sare ee geelu ka joogo marka ay sheegayaan bal u fiirso wuxuu leeyahay geelida haween guud la firo iyo guursi laga qaad wuxuu leeyahay hadday afadu kaa dhimato waa un guursanaysaa wax dhibaataa male geelidaydana guryo ba'ay iyo gablan laga qaad waa isaga geelidiisa geelidaadana waa hashii gaawo maran iyo gaajo laga qaad mar waxay tilmaamayaan dhibta dhaqashadiisa geela sida yani dhaqashadiisa ku sugan oo waa waraabintiisa iyo cirweynidiisa iyo maanta oo dhan baa loo shubayaayo markaasuu yidhi saaka hiirtaa hubka loo dhigay oo haddana weli soo horaydiyo hood alla hayaabu yani ma dhargeyso weeye calool weyn bay leedahay hashu ama ratiguyo marka wuxuu leeyahy waa ku daalay marka saaka saan u bilownay ayaan u shubaynaa markaasuu yidhi saaka hiirtaa hubka loo dhigay dharkii baa la isaga dhigay si loo waraabiyo oo haddana weli soo horaydiyo hooda la hayaa mar kale wuxuu yidhi saan u foolaray miyay farihii iyo feerahayguba fool xumaadeen macnaha si u shubahaye weye marka wuxuu leeyahay waa ku caatoobay oo naftaa iga baxday mar kale wuxuu yidhi jeeruu sacabada sarta kala baxo ama uu sararaha suuman adag iyo seedda kala jaro sidaas kuma tago jacaylka geela ayaa waxay mararka qaarkood gaarsiisaa meelo aad u fogfog soomaalida marka wuxuu la simahayaa marka umul wiil iyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray
fiiri waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay habeen wax la yidhahdaa jira oo ciidda iyo kaadida geela geelu markuu kaadsaado waa sayntu waa sayn dhowdaa markaasaa hadhowna wuu fadhiisanayaa meeshii qoyan buu fadhiisanayaa waa isku dhegayaan xargay noqonayaan kaadidii iyo habeed baa la yidhahda habeeddaasi waa isaga ninka geeljirahahi carafta barafuunada ayay ula mid tahay markaasuu leeyahay umul wiil iyo aroos maahide maxaa unsigu kaaga soo uray oo umusha markii ay tahay haddii alla kugu ron yahay ay wiil dhasho iyo aad loogu dadaalaa gabadhaha markay dhasho aad looguma dadaali jirin marka umul wiil iyo aroos maahide aroosna matiida arooska waatan haddii alla kugu ron yahay caraf iyo guriga guuro cusub wey maxaa unsigu kaaga soo uray unsigaa wuxuu u jeedaa habeeddii mar kale wuxuu yidhi weynaydaayoo wanaagsanidaa waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadba lahayn inaada dhiman baa ficnaan lahayd weligaaba uu leeyahy mar kale wuxuu yidhi salaadiyo suub salaadaa daran suub hadday timid salaad laqalle wuxuu leeyahay haddii la kuu doonayaa waktigii duhurkii iyo hadduu garo casarkii iyo iyada oo hashiina soo muuqato iyadoo ooman salaadda waa la qabaynayaa iyadaa la hormarinayaa buu leeyahy subxaana allah waa jacaylkii waa ka bata mar kale wuxuu yidhi waa u duceeye wuxuu yidhi in libaax cunu uga duceeyo wuxuu yidhi adoo fiid dambeed fulay bahal fara weyn libaax loo filay kama daba fulo oo yani kuma soo raaco hadhowna kuma cuno mar kale wuxuu yidhi haaruu shalay maray oo ku kala haray haadkii kaba dhace waa duco iyaduna haadku ama haaddu waa baalahan gorgorka iyo cunaha hilibka baktiga iyo haddii alla kugu ri marka wuxuu leeyahay inta lagu dilo haadku meeshuu ku dhacaya had yeeshee raq baa taal mar kale wuxuu yidhi sida geela loo heluu sheegayaa de waa ku dagaalami jireenoo waa u duuli jireenoo markaasuu yidhi meel xinjiritaal oo ku xarbiyey xayaad olole halkaasi ololaysaa raggii baa ku dariraya iyaduna halkaasi taagan tahay oo cidda u adkaataa la tegeysa wuxuu yidhi mar kale xarbinamaan gelin oo xabada ridin soo xerayn waa geel bilaash laguma helo wey mar kale isla macnahaas wuxuu yidhi dab nin qaatoo duule mooye aan duceeyiyo diin qur'aan iyo diiqo lagu waah mar kale wuxuu yidhi sidii culimmada looma cabanine caradhuub iyo caraa lagu helay taasina waa tusaalayaashii geela ku saabsanaa heestiisa waxayna haddii alla kuu roon yahay ay ka tarjumaysaa waxa weeye waa heesihii dhaqanka ee hore oo aad iyo aad u fara badnaa waxaan ka soo qaadnay heestii geela